ayaa rag askara u iman jiray habeenkii u la caweyn jiray salaada kacaan isagu marka oo xaggaas iska fadhiya mar walba salaada ugu yeedhan waa askartii may wala fadhiya uu sheekeeyaa ugu dhawaada shar oo dhan ugu dhawaada waxaana dhacay sheekadana dhacday sidan warbu meelaha uga keenaa warkaas oo dhan u waramaa ay ku kari waayeen salaadii iyo cibaadadii iyo khayrkii iyo naftiisa inuu tahiro ay ku kari waayeen si walba la yiri wala kari waayeen waxa uu leeyahay raawiga qisada soo qoray ilaahay baan ku dhaaranayaa inaanan ku darin in yar qisadu sida u dhacday waxa uu leeyahay maalimaha kamida uma qayla maqannay waan yaacnay gurigiisii baan tagnay waxaana lagu yidhi saaxiibkiin baa dhintay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waan argagaxnay buu yidhi ninkii mas-uulka ahaa baan u sheegnay waxa uu yidhi si wanaagsan ha loo aaso aaskiisa ha laga qayb galo janaasadiisa ha lagu qaado fardaha ha lagu qaado oo farda iyo mar si wanaagsan baan si nin sare ayaa loo aasayaa waxa uu yidhi salaam baa la bixiyey laannahu noo shaqayn jiray warkuu u keeni jiray sirdoon ayuu ah laakiin salaad ma tukanayn diin ma oqon waxa uu yidhi waxaan u kaxayn xaggaa iyo janaasada meydkii qabriga ayaan u kaxayn waxaan ku wadnaa waa qabri waa meeshii ka boqorka u galayay faqiirka u galayay miskiinka u galayay gebi la wala galayay weeyaan qabrigii baan u wadnaa waxa uu igsaan u soconnay ilaahay baa ku dhaartee ayaa fardihii baa diray waa la isku yaacay waan wala argagaxnay fardihii oo wala boodaya waan istaagnay waa mas ilaahay oo og yahay intuu leeyahay oo nagu soo orday xaguu ka soo baxay qabriga ninka aan rabno inaan kulliba ka soo baxay fawallaahi aladii laa ilaaha hayruh qabriguu ka soo baxo wuxuu u soo ordayaaba xaggaa iyo ninkii waan isku argagaxnay buu yidhi waan yaacni gebigayga waxa uu yidhi waa bahal masa oo bidaar leh caddaan madaxiisu inta sare oo afka kala furay waxa uu yidhi markii aan yaacneen wala argagaxnay fardihina yaaceen ayuu iska joogsaday waxoogaa waan ka fogaanay qof la hadli kara ma leh mas intaa leeg waa markii ugu horayseen aragnibu ku leeyahay weynida yacni waxa uu karaa faraska gebigiisa inuu liqo waxa uu yidhi waan iswala taagnay annakoo wala argagaxsan meeshii baan istaagnay xoogaa markaan soo yar miirsannay ayaan nidhi aayarhan eegno intaan eegno bal han la soo baxsanna meydkii waxa uu yidhi si sir ahaana intaan aayar rag u dirnay ayaan la soo cararnay meydkii dib buu iskaga noqday hoggii qabrigii aan qodnay ayuu ku noqday waxa uu yidhi qabri kale ayaan qodnay meel 500 oo mitir ka fog qabrigaa hore ayaan ka qodnay markii aan doonnay inaan ku ridno isaga waxaa nagu soo boodayba maskii intii leeka qabrigii kale ka soo baxay argagax waan wala yaacnay buu yidhi gebigayga waan yaacnay waxa uu yidhi kadib waxoogaa markaan ka dhuumannay ayaan iyo dib u noqday hadal kale ma leh sheekh baa nagu jira sheekhii baa soo baxay dadkii buu wacdiyey sheekhii ayaa waxa uu yidhi ayuha alqowm innahu wallaahi ladarsun lakum yajibu an laa yunsa waa darsi dadow wax ku qaadsa waajiba in lala iloobiyo waa cibra liman yactabir qofku cibra wax ku qaadanaya cibra u noqonaysa dadow ilaahay waxa uu doonayaa inuu ina tuso aayaadkiis wax walba ilaahay inuu koro dadoo ilaahay u toobadkana sheekhiiba xaggii ku waaniyey dadkii kadibna sheekhii ayaa u soo dhaqaaqay xagga iyo maski waxa uu ku yidhi
isaga oo maskii la hadlaya nebigaa noo sheegay sala allahu calayhi wasalam in qofka cibaadada ka taga iyo salaadda maskaa lagu sallin masow noo kaadi intaan aasayno waxa uu yidhi maskii waan noqday waan ku rognay annaka oo degdegaynoo wala argagaxsan midba midka kale uuna la hadlayn ayaan ku tuurnay luxud geli iyo ma jirto waan ku tuurnay ciidda ku raga horay ka gaarhsii mid walba uu argagaxsan yahay buu ku leeyahay war iskuma hayno waxa uu yidhi sidii bahiimo lax dhimatay oo kale ayaan qofkii ku rogay dhagax hagaaji iyo rushaaya u duceeya ma jirto waan ka yaacnay meesha qisadaasi waa run wallaahi aladii laa ilaaha hayru saasuu leeyahay waxaan ku dhaaranayaa ilaahay qaahirayna ka dhacday sheekh kale waxa uu leeyahay oo qisadaas oo kale waxaa la yidhaha saciid ibni musfir ayaa la yidhaahdaa waxa uu leeyahay taas oo kala dhacday laakiin markii saddexaad uu nagu soo baxay maydkii buu isku laalaabay markaasaan maqlayna jejebista u jejebinaya qacqacqa isagoo maydka lafihiis jebinaya walaa xawla walaa quwata illaa billah insaankii karaamada lahaa ilaahay uu yidhi faamaatahu uma amaatahu faaqbarah ilaahay qofkii siduu u sharfiyey u karaameeyey qofkii marka uu dhinto halla aasaa la yidhi halla asturo qofkii xataa insaankii markuu naftiisii uu taskiyeyn waayey uu hagaajin waayey uu cibaadadii iyo khayrkii iyo wanaaggii uu ka tegey xataa waxaa sugaya qabrigiisa waxaa ku sugaya abeesadaas ama maskaas ayaa sugaya